بسم الله. magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro waxaan fiidiyowgan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimca waan salaamayaa dhammaan inta fiidiyowgan daawata ama dhageysan doontaba waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii aan muddo badan ka fikrayay ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikri jiray waan dareensanahay runtii in kuwo badan oo idinka midow runtii aan ku yara aragti duwannahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxa aan rabo inaan soo gudbiyo taasaa anaga aad igu muhiima. sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya. aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala maalintuu i oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle iyo qodin inaan lay aasin. arrintan waxaan ka fikrayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano. ilaahay subxaana watacaala ha ii kasto inaan si wanaagsan u barto insha allah. mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha. dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono. subxaan allah. marka aniga ahaanteeda fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaay aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli kara in la eego. adduunka maxaa la yidhahdaay dhul la-aan kama jirto. adduunka dhul badan baa iska bannaan. dhul kasta wuxuu waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo maydka la dhigi karo meesha laga caasi lahaa in maydka meeshaas la dhigo. dhul kasta waddan kasta dhulka ka bannaan in maydka la dhigo. had kadib xitaa haddaa fiirisi systemka ay wax u socdaan waxa weeyaan dadka haddaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aad u tiro badan yihiin oo runtii ay aad u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aad isu yaraan doono khaasatan hadda waddamadan reer galbeedkaan joogno inuu aad wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aad u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib karayo meesha laga caasi lahaa. qaar baa oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa. marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unbay iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto maadaama waxaan anigu rabo weeyaan. anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan qusaysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu magaranaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoo aanan rajo aada u fiican aanan ka qabin oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyaday labada daandhood bayga jeceshahay cimrigeeda ilaahay ha rajiyo haddi kahor maraan weydiiyaan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhinta in lay aaso waan ka dhaadhicin kari waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysidna waan ku asturayo awalna maxaa la yidhahdaa aan qofba mar farta ka xiri jiray walaalo dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabriga neecahay yaan lay gelin laakiin hadda maanta anaaba halkaan la soo fariistay ilaahayna taladan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahayo aan ku dhashay aan ku qurux badanaha joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka barya dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xabaalaha soo kala yaacaan mar allaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxsa usoo kala ordayo meelkiimadan la aqoono majaafadiya balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaalaan waxaan dhihi lahaa naxariis darada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anigu hal gabar hadday imaydho is okay حتى dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxay leedahay dadka isugu tagaano jiidaan dadka meydka ah anigu waxa soo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliyaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda qabri igeliya maalinta yawm alqiyaamah haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga la xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo subxaan allah ilaahay baan ka magan gala ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada anigu khaasatan waxaan ninka qofka wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas ma rabo in lay aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oo dhulkayga aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Ethiopia ah hooyo ku dhalatay aabahay buuhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhahdaa hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da'a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro qofka iga dambeeya ayay arrintan qusaysaa aniga ilaa xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magan galay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha igu soo duxdo weligay allah xitaa dhulwacyo yar oo korkayga saaran xitaa gacantayda uma qooreen aan ku dilo iska mid ah qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayayaan taan qof inaan dhaamaane inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo naxariistu ha igu soo degto dadka yaan la xabaale xalkala hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxa yaan la ila cararin yan markiiba la ila boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxa aan nabcaan ka hadlayaa waxa aan rabin baan sheegayaa أشري حسنات كيلي ميسان قف كبانتي الدوغة أو بحال هذا ويلا سوكر دوتشي عيلي يشرب لا ما كمان قال سكنا يا مرة لا يحد وانا معي أشري كيلي ميسان ده اللي شيء معناتها بنتو أشري حسنات ولا كيلي ميسان أخرى ده استعد ده أستان قبل كاس بولكاس هيجرينا جيت كاس هلا يسار بولكا جيت هلا يقصمرو عفدها هلا يجريو ماشي أقول شيء جعيل الأزل ما عرفت أقول جدا حاجة عليك وإذا قعدت صنيع قف كستقوا إذا نرضى بيان عن دسقوس فيديو وقصير ما تلك الله فريع قف كستقوا إذا نرضى بيان قف كستقوا إذا نرضى بيان أو أنا فيديو قستقوا ولا كان تاون مقصير لكن كيف فيديو قستقوا أو أنا هالكاس أنا صوف فريع أركو
maalintii aan dhinto waxa weeyaan asxaabtana waxaan leeyahay haddaba igu yidhahdaa deeqa adduunka kaala kusoo wareega xaggan iyo xaggan maalintaasaan wareeg u baahanahay maalintaas diyaaradaha lay saaro halaygeeyo meeshaas geed ha lay saaro halayga soo wado geedka korkiisa hala iyo firaasha hala ii geeyo rakaha lay sameeyo wax geedaha lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نعمل هي اللي قلنا